السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر وذا بغداد أكاديمي كورسدني recruitment and selection ما أنتو حبلاوينا مول الكافرات وكسبسن screening and shortlisting applicants طبعا قيبيه هره وحان كاقصو هذا the recruitment process the job posting job analysis عشرة كلا أو كلا جدوان 10 كان أما عتب كانوا حين ديردك وصار دونا وحلو يقان screening short listing طبعا وان إيجي دونا قيحتان كإرجع screening لكن سي سيمبل هذا idin macneeyo maxaa loola jeedaa screening sida sawirkan kaaga muuqdo waxaa loola jeedaa inaad eegtood qiimeyso dadka applicantska ee shaqada soo xareysay oo soo gudbistay in si hordhacaad u qiimeyso aad eegtood fiiriso adna qiimeyso inay miidgareeyaan amaba ay buuxiyeen shuruudihii specificationskii qualificationskii ay skillskii la rabay inay leeyihiin in kale kadibna waxa la sameeyaa short listing waxa loo yaqaan oo macnaheedu tahay in qayb yar oo kamid ah dadkii tirada badnaa ee screening lagu sameeyay in la soo doorto oo loo gudbiyo marxaladda xigta ay noqon karta mesela assessmentiga testinga ama mesela interviewga hadaba cutubkan waxaan u qaybinaa laba qayb part 1 iyo part 2 tobagidana ku gorfeendano waxa kamid ah screening and short listing waynu qeexi doonaa what is screening what is short listing and why they are important screening methods qaababka kala duwan ee screening loo sameeyo ayaan eegi doonaa conducting effective phone screenings and initial interviews ayadana waan eegi doonaa runtii si gaara phone screening wax loo yaqaan initial interviews ayaanu ka hadli doonaa developing a short listing criteria based on job requirements sidoo kale waxaan eegi doonaa sida loo dejiyo halbeegyada lagu saleeyo short listingka hadaba inuu bilaawno Screening and shortlisting. What is screening and shortlisting? Screening is the initial process of reviewing applications to identify those that meet the basic requirements for the job. Screening waa processka hordhaca ah waa processka bilowgii la sameeyo ee lagu qiimeynayo lagu review gareynayo applicationska kala duwan طبعا horaan naga soo hadalnay application wuxuu noqon karaa offline ama online so marka waxa dhacaysa sometimes hundreds of people inay soo apply gareeyaan so marka waxa la sameeyaa wax loo yaqaan screening oo macnaheedu tahay in la review gareeyo applicationska kala duwan ee soo xarooday si markaas loo ogaado that those that meet the basic requirements for the job kuwa applicantska meet gareynayo buuxinayo requirements ee basic asaasiga ee shaqada looga baahan yahay mesela waxa kamid ah basic requirement mesela qofka inuu haysto bachelor's degree oo field cayiman ah mesela for example hadii ay jagada banaanad ay ahayd finance iyo accounting yani mesela basic requirement waxa qofka inuu bachelor's degree uu haysto in accounting ama finance this is one of the basic requirements ayuu noqon karaa ama uu kamid noqon karaa so marka in horta initially la review gareeyo applicationska kala duwan soo xarooday طبعا methods badan ayaa jira oo la maro waan arki doonaa markaan methodska ka hadlayno kadib waxa la sameeyaa short listing hadaba waa maxay short listing selecting a smaller group of most qualified candidates to move forward in the selection process interviews or assessments yani short listing waxa loo jeedaa in la doorto qayb yar oo kamid ah dadkii lagu sameeyay screeningka oo ah most qualified candidates yani candidates most qualified kuwa buuxiyay most of the requirements ki ay jagadu lahayd طبعا tirada dadka shortlisting loo sameeyay طبعا waxay ku xirnaan doontaa mar walba tirada dadka soo xareystay ayay ku xirnaan doontaa yani sometimes mesela waxa dhacayso dadka in soo xareystay shaqada inay noqdaan ba 4 ama 5 qafood ay noqdaan oo kaliya so marka in that case yani dadka shortlisting lagu sameyn doono maybe inay noqdaan dhamaantoodaba in shortlisting lagu sameeyo ama ba 70% or 80% laakiin hadii ay boqolaal qof ay soo xareysato طبعا waxa dhacaysa sometimes only the 10% yani topka ah in la soo short list gareeyo so marka dadkaas la short listing lagu sameeyaa xagee loo wada waxa la geenayaa marxaladda xigta the selection process ayaa la geenayaa oo haday tahay interviewska inay u gudbaan ama ba assessmentiga طبعا markaan selection techniques aan tagno ayaan kaga hadli doonaa insha Allah interviewska iyo assessmentiga iyo qaababka kala duwan ee lagu kala doorto candidateska okay Why are screening and shortlisting important? Waa maxay sababta ay screening and shortlisting ay muhiim u tahay? These steps save time and resources by focusing on the most promising candidates. يعني muhiimada
iyo faa'iidada ay leedahay screening and shortlisting waxa weeye inay noo save garaynayso time badan iyo resources iyo dhaqaale iyo waqti badan iyo juhdi iyo dadaal badan oo nooga bixi lahaa anagoo diiradda saarnayno most promising candidates most promising candidates dad candidateska ee fursadaha leh ay caddahay inay maybe kusoo bixi karaan marxaladda selectionka يعني imagine interviewing everyone who applies it would be overwhelming and inefficient يعني مثلا waxaan kasoo qaad inaad interview ka qaado qof walba apply gareey يعني طبعا for example if 200 ama 500 sometimes 1000 people ay soo codsadaan shaqada it is impractical in dhammaantooda interview laga wada qaado so marka the screening you know iyo shortlisting wuxuu naga caawinaya runtii inaynu runtii diiradda saarno dadkaynu isleenahay yani waxay meet garayeen the basic requirements the top niche aan soo qaadanayna ayaga ayaan u gudbinaynaa marxaladda xigta ee selection so marka shortlisting iyo screening runtii siyaabo badan ayuu businesska ama shirkadu u caawinaya waxaa kamid ah manage a large applicant pool effective screening tools help you efficiently review a high volume of applications طبعا screeningka iyo shortlistingka wuxuu si gaar ah muhiim u yahay marka applicants uu yahay large pool yani large pool dad tiro badan markay soo apply gareeyaan ayaa nuga caawinaya runtii inaynu yani si effective wax ku ool ah aynu review garayno yani high volume of applications tira badan inaynu review garayno طبعا reviewga si manual ah waa loo sameeyaa manually waxa kale oo loo sameeyaa runtii you know ayadoo laga faa'iiday teknolojiyada yani gaar ahaan markuu applicationka yani online yahay yani waxa la isticmaalaya teknolojiyada si markaas screeningka ee loo sameeyo loona hubiyo lana doorto dadka la isleeyahay the basic requirements way meet garaya sidoo kale faa'iidooyinka waxaa kamid ah focus on qualified candidates yani wuxuu naga caawinayaa screeningka iyo runtii shortlistingka inaynu diiradda saarno dadka qualified candidateska oo aan waqti badan iskaga luminin dadka aan qualified ka ahayn by filtering out those who don't meet the basic criteria you dedicate your time and resources to the best applicants yani markaad filter ku samayso oo aad shaqshaqdo oo aad kala saarto oo kala shaandhayso yani dadka tirada badan ee soo codsada shaqada waxaad fursad u leeyahay diiradda iyo waqtigaaga iyo juhdigaaga aad u weeciso dadka meet gareeyay the basic criteria very very important yani halbeegyada asaasiga shuruudaha asaasiga qualificationska asaasiga dadka meet gareeyay si markaas anaga aan waqtigeena iyo timekeena aan dadkaas u weecino okay sidoo kale faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa kamid ah improve interview quality waxay sare u qaadaysaa tayada interviewga shortlisting ensures you interview candidates with a strong chance of success leading to more productive and focused interviews يعني shortlisting wuxuu naga caawinaya inaynu tayada interviewga aan sare u qaadno oo macnaheedu waxa weeye dadka u soo gudbaayo يعني level كحجة interview أما بفيس كحجة أو interview إني نقول دونان dad strong chances يعني فرصة وفي عنها يستوي يكون جوليستان أنا أقول مركا كتيم كدت كinterview قاعدة أما بشركة ده شغادة بحنيسو يعني وح تاسع كعاونة سمركا إن ونقضوا interview كده ميت productive يعني حتى مثلا for example واحد عايز دت كقار مثلا هدي دت كشورت ليستنج اللي جوسمي أيهن مثلا صدق قفوت أو صدق كاس لوجا هي طبعا قفوت أو كلا مثلا لبعتن قفوت كلا أن لقادنين وح لجلين دونا ليستي أو ضد وحين نقول دونان أو runtii lagu tashto bari hadii fursado kale ay soo baxaan shirkadda uma baahnaan doonto inay yani job posting and advertisement iyo listing iyo screening kale ay marto dadkan ayaaba yani waiting listiga ku jiro ayaga ayaa fursado la siinaya soo marka horeba marka hadii la sameeyo screening sax ah short listing sax ah waxaynu runtii awoodi doonaa in marxaladda interviewga ay u soo gudbaan dad fursado fiican haysto oo runtii inay ku guuleystaan hatta arintaas waxay ka caawinaysaa shirkadda inay runtii ay kala doorato the best of the best inay kala doorato very important okay now screening methods waa maxay qaababka screeningka loo sameeyo there are various methods to screen an applicant each with its advantages and disadvantages waxaa jiro qaabab iyo siyaabo kala duwan oo loo sameeyo
screeningka mid walba waxay leedahay marka faa'iidooyin iyo sidoo kale waxay leedahay muxuu ahaa disadvantages waxyaabo aysan ku wanaagsanayn yani so marka waxaan eegi doonaa mid walba oo ka mid ah methodskaas waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay iyo waxyaabaha uusan ku wanaagsanayn waxaana arrimahaas ooga hadli doona insha allah cashirka xiga intaa ku kulmi doona waxaa idinka tagaya fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh